waxaan diyaar u ahay haddii aan maanta sharma uu imaqlaaya haddii aan caawa xaq u dhimanayo wallaahi bilaahi tallaahi diyaaraan u ahay in la igu dilo xaqa boy iyo waxyaabo ku saabsan waxaa yidhi balaada diyaar waaye waxba kaba qabin waxaa dhacday dhalinyartii inaan u tago markaan u tago inay gaari gishtaan oo yidhahdaan balaada intaa kuusoo wada hadlayna wata waxay anigoo baabuurka kusii jiro waxaa ligu korwacay ninka la yidhahdo axmedshii markii lagu wacay waxay yidhahdeen intay joogtaa waa ku imaanayaa. السلام عليكم حبيب وناكسن معلوم وناكسن وقت والبا يكوتا وناكسن وين سلامي مقام والبا أكوفا ديدي وقت والبا يكوتا وحن كحمة هاي حلي كان فيديو أصول دوبايا ولكن محمد دا انتوشي دونه شلي أيو كهاد لاي ولاي حق أيام دي منايا محمد shala ayuu ka hadlayay xaqa ayaa u dhimanayo wuri maantani waa loo dilay aawice iyadoo xaq darra lagu dilay oo dilay ninka nairobi laga wada yaqaano ummadda islaamka ummadda soomaaliyeed weli khaasatan ummaddiisa nin waxaa jiro doqon walaalkeed ka adag dadkiisa ayuu ka adeegaya Soomaaliyeed bal wax yar ila fiirsho wiilka Soomaaliyeed ila daawada Soomaaliyeed wuxuu naga codsanaya inaan u banaan baxno maanta haddaa asiga u banaan bixi weyno wallaahi baan ku dhaartay billaah guryaheenu daad ka socdo noogu soo galaya cadaalad darrada guryaheenu noogu imaanaysaa bal ku soco aan dhaho darad ila fiiriya waxaan leenahay marka Soomaaliyeed waxa la gaarsiiyay waa arkaysaan ka hadal ma lahan ee wax u baahan tahay wax ka qabad culimada Soomaaliyeed oo Kenya xildhibaanada Soomaaliyeed oo Kenya ganacsatada Soomaaliyeed oo Kenya wiilkan Soomaaliyeed مجانجستر با ما وضدك ودوين كتاعهم با انت اصبح ما وويل سوماليات او افكيساس مالو كوميدي دادك هقوصلية سمية يوتيوب كاس هوشيس يوتيوب لئيتا ayaa maanta waxaa loo dilay maxaa runta u sheegtay bal ku socaan dhahnaba hal mar waxaa igu dhacday arrinka ligii dilay waxaa waaye maadaama aan cadaalad iyo xaqa aan ka hadlay oo aanan ka hadlay runta jirto ee sharma boy iyo daaq dirji loo geystay waxaa dhacday maanta markay saacadda weynaysay halka saaca habeennimo waxay soo wacay dhalinyaradaasi ka koobnaayeen 8 qof waxay yidhahdeen waa shukubaaba kuwa qaar aan aqoon u leeyahay waxay yidhahdeen miyaa hadlaynaa shukubaaba markaasa ku yidhi haa waa diyaar mustii aqoonaan u lahaa waxaa dhacday in la yidhaahdo brother waxaa raba inaan kulaalo oo kulukulba aana kulaadla kaala hadla arrinka sharma boy iyo waxyaabo ku saabsan waxaa yidhi balaada diyaar waaye waxba kaba qabin waxaa dhacday dhalinyartii inaan u tago
wada hadlayna wata waxay anigoo baabuurka kusii jiro waxaa ligu kor wacay ninka la yihahdo axmed rashiid markii lagu wacay waxay yidhahdeen intay joogtaan waa ku imaanayaa anigu waxaa is yidhi axmed rashiid axmed rashiid ninkii yaqaan waa yaqaanaa ninkaan ka seenina hadda ayuu baranayaa wuxuu yahay maxaa yeelay axmed rashiid waa nin askari kenyaati ah waa nin askari oo kenyaati soomaali ah dadka sidaas ayuu ula dhaqmaa waa askari ma la dhihi karaa marka su-aashaas adigaa ka jawaabi doonta xabis lama geenin meel lama geenin waa lasoo jir dilay waa lasoo celiyey tan waa tu ay u taal soomaalinimada inay ka kacda wallaahi maanta haddaan ka dhiiji weyna tan absolutely waa noo dhamaatay ninkan gobonnimo ku dhintay dhaawiciisas macna ma lahan waa nin rayga waa raysanayaa laakiin booskiisu waa xajistay laakiin maanta anagaa loola baahan yahay booskeena inaan xajisano culummada soomaaliyeed oo kenya joogto oo ka hadasho markii dhibaatooyin yaryar oo kale ay dhacaan dhibaatooyinka waaweyn oo agtooda nairobi taalan aan ka aamusto waxaan leenahay maanta inaad ka hadashiin waa idinkana hadduu qaldan yahay axmed rashiid ka qabta ummadda haddii laga qaldan yahay noo soo sheega wixii looga qaldan yahay culamo waaweyn oo ilaahay baray ayaa joogta nairobi bal wax yar nala dhegaysta haddane waxaad iska dhigaysaa qof dambiile ah ha iska dhiga qof dambiile ah maadaama aad dambi lahayn because axmed rashiid wuxuu howshiisa ay tahay inuu dilo ragga tuugada ah ragga wax dhaco ragga toolada wato iyo ragga biskoolada wato aniga intaasi kaba saabsani bana ku jiri waxaa la ii soo kaashtay dhalinyartaasi dhalinyartii markay wada hadal bilaabeen oo meesha agaarima la dhaho james street alxayaat dhalinyartii waxay bilaabeen in haraantan laygu qabto mid ka mid ah wejiga uu iga haraantiyo markaan kacay aan ugeegsan waayay aan gacan u qaaday oon isdagaalay waxay ka koobnaayeen markaas 10 qof 2 qof ayaa gadaal uga soo dirsoontay hadduu qabiil wax tarayo dhalinyaradii wacday ayaa ku bilowdaba dagaalka waxaan sheegayaa soomaalida markii la hadlo dadaa ku dhahaya waa qabyaaladiista waa qabyaal waa sida waa heer hebel waa heer hebel markii la rabo in wax nagula baabi'iyo heer hebel aa la naqdaa wax markii la rabo tuugada inay daba gooyaan rabaan waa heer jaamac waa heer qurac waa heer garas waa heer heblaay waxaa ogaanaysaa ninkan iyo ninka wax yeelay isku reer waaye laakiin reer ahaan wax ma loo yeelay maya ninkan maxaa wax loo yeelay waa wiil soomaaliyeed waa wiil dhalinyaro ah waa wiil xaqiiqdii inuu sheego jecel bal ku soc aan dhahno waxaan waa istaagay oo waa isdejiyey waa la iskugu keenay markaan arkay gacaqaaqooda igu samaynaayo waxaa bilaabay inaan iska dhiciyo sideedida gadirwa waxaa tiri baraad waa dhibatay intaan la dhimanin ka hore geesinimo u dhimo gacan ayaan qaaday markaan gacan u qaaday waa la iga badiyey sax wallaahi karti waan ka xumahay waan ka calool xumooday dunida intaan joogani tanoo kaleeta inaan arkaayo ma u malaynayn soomaalida waa dad wanaagsan oo xaqa inta badan u dagaalamo laakiin dhalinyaro soomaaliyeed inay wacaan wiil dhalinyaraha soomaaliyeed ay saas u galaan aada ayaan uga xumahay ku soco maadaama la iga badnaa waxaa noqday geesi garab waayey
ومتقالة وغير اسكزالي وهي ما هيك geesi garab waaye ma naqanaysid garab waa helaysaa insha allah biidnillahi kariim waxaa garab ku eh halaha soomaaliyeed oo wanaagga jecel waana imaanayaa xaqa waa imaanayaa maanta wuxuu u dhintay magac soomaaliyeed waa noolyaha ma dhihi karo waa loo dilay waa loo dhaawacay wejigiisu qurux badan oo gurigiisa ka baxay wejigiisu saasuu soo noqday aniga ka hadlayo iyo adiga i daawanayso labadeennaba waxaa nagala rabaa inaan tan aana ka aamusin aan u wada kacno dhalinyaro walba oo soomaaliyeed saas ayaa la yeelaa maalin walba yaa yeelo midka tuuggaa oo nagu dhex jiro soomaaliyeed maxaa liiga baahan yahay adigana lagaaga baahan yahay waa wada ognahay wixii noogala baahan yahay inaan gacmaha iswada qabsano inaan meel kasoo wada jeesano inaan xaqiiqdii aan dhalinyarada soomaaliyeed oo soo baxaya oo mustaqbalka dalka ah oo noloshooda aad ogtihiin xaaladda ee ku jirto africa ku joogo haddana la dadaalayo bartaas kaaga istaagaya lahay bal aan sii dhegaysano waan ka xumahay aad ayaan uga xumahay waxaa dhacday inay dhahaan yar la yidhahdaan model iyo inta majeerteen abdan waxaa balan lagu ah inaa meel saaro waana magaalkiisa nabad ku dhawaanin waxay yidhahdeen adiga waana majeerteen ahayd waxaad majeerteen oo daba dhaqlaynaysid waxaad tahay dabadhil majeerteen waxay ahaayeen dad awoyaasheeda xirxiray dad awoyaasheeda gumaaday iyo gacqaad fara badan dhalinyartaas bal ilaa halahaas waxaa soomaaliya bal fiirsan annagaa sidii banoonigu noogu dheedheelayaa mustaqbalkeena la baabi'iyey mustaqbalkii dhalinyaradee soomaaliyeed waa la baabi'iyey kuwa hadda soo baxaya mustaqbalkooda in la baabi'iyaa la rabaa kuwa dhala doona mustaqbalkooda in la baabi'iyaa la rabaa maxaa nagala rabaa anaga inaan gacmaha iswada qabsano ilaahay dartiis aan iskula dhalanay shalay wax qabyaalad la yidhahdo ma jirto gacmaha inaan iswada qabsano aniga iyo dhammaantiin iyo ummadda soomaaliyeed ilaahay xaqiisa iyo waddadiisa inaan wax ku raadinaa ilaahay ka cabsiga inaan badinaa aan ilaahay anagoo ka wada cabsanayn aan u dhimanaa sidoo ugu dhintay wiilkan soomaaliyeed waxaan leeyahay waxaan sheega ma ka saayi intaan video lamida aan ku kulmayno sidaas iyo nabadgelyo aad baan uga xumahay maxaa yeelay dhaawiciisa waa dhaawicayga waa idamqiye jirkiisa maanta ilaah baa og xaaladdaas laakiin ilaaha naga saaro insha allah soomaalidana kuwa gacmahaas qabsada allah ka dhigo insha allah intaa video lamid aan ku kulmayno waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo